jaamacadda Addis Farceeda magaalada Burco ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameysay arday ka socotay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waxaana ardaydani ka socotay kulliyadda ICT-ga jaamacadda Camuud ay mas'uuliyiinta iyo ardayda jaamacadda Addis kaga hortageen duuleedka waqooyi ee magaalada Burco iyadoo soo dhaweyn diiran loogu sameeyay halkaasi intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Burco waxaana isugu soo biyo shubteen xarunta jaamacadda Addis ee magaalada Burco halkaasi oo loogu sameeyay ardaydani munaasabad soo dhaweyna waxaana goorantaba ka hadlay halkaasi gudoomiyaha jaamacadda Addis Cali Cashuur Xasan macallimiin iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah jaamacadda Addis kuwaas oo si la furan u soo dhaweeyay ardaydani iyo macallimiintooda ka socota jaamacadda Camuud runtii waxaan salaamayaa ardayda iyo maamulka iyo madaxda hogaaminaysa ee ka socota jaamacadda weyn ee waxa weeyaan Facale ee Camuud runtii waad baan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa kale iyagana soo dhaweynayaan iyagana leeyahay mahadsantihiin ardayda dhigata jaamacadda Addis maamulka macallimiinta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa runtii aan bogaadinayaa kulliyadda informatics-ka oo barnaamijkan runtii ka ahayd runtii jaamacadda Camuud waa jaamacad facaweyn oo ah barta laga nooleeyay runtii aqoonta iyo waxa weeyaan fanka iyo waxa weeyaan cilmiga Soomaaliyeed guud ahaan qaranka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Somaliland runtii aad baan ugu faraxsanahay inay markii labaadna soo booqdaan Boorama Burco ka dhaxeeya xiriirka ka dhaxeeya iskaashiga ka dhaxeeya waa mid qadiimi ah waa mid qoto dheer waa mid jiri doona insha Allah taala Boorama waan iman doonaa waan soo booqan doonaa hoy baan insha Allah taala ka dhigan doonaa idinkuna bartan hoy baa ka dhigan doontaan aqoon ahaan waan iskaashan doonaa waxana dheertina iyo waxana anaguna idinku biirin doono hadii Ilaahay ka dhigo aad baan idin soo dhaweynay soo dhawaada jaamacadda Camuud kulliyadda la sheegay oo IT-da farxad weyn bay noo tahay oo waliba aniga farxad weyn wax badan baan shirar joogay caawo kale maxaa yeelay dadkaan ugu weyn caawo hees baa waxa ahayd gugayga igu simay guushiyo barwaaqada alxamdulillah ilaahay baan u mahad celinayaa habeenkan farxad leh oo dadkaan anigu ugu weynahay aan maartay soo dhaweynayo aad baan ilaahay ugu mahad celinayaa waxa weeyaan habeen farxad leh waa habeen taariikhda galaya waa habeen aad iyo aad taariikhda noogu galaya mana ilaawi doona ma filayaa haddaan nahay fakalka informatics-ka waxa sidoo kale ay farxad u tahay dhammaan ardayda jaamacadda oo dhammaantood si wada jira soo dhaweeyay ardayda jaamacadda Camuud gaar ahaan fakalka ICT-ga waxaan idinku soo dhaweynaynaa maadaama aynu caawa halkan u nimeeynaano idinka ama ardaydii jaamacadda Camuud ee IT-ga soo dhaweynayna waxaan idinku soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afka ardayda iyo afka jaamacaddaba waxaan ilaahay ku soo dhawaada qalbi furan gacmo furan iyo magaalo furan waan ilaahay marka geeska kale waxaa halkaasi ka hadlay macallin Axmed oo hormuudka ardaydani ka socotay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama iyo sidoo kale xubno kale waxaana ay uga mahadnaqeen jaamacadda Addis soo dhaweyntani ballaaran ay ugu sameeyeen magaalada Burco marka koobaad marka labaad marka saddexaad marka afaraad ilaa marka kunaad baan u maleynayaa aad bay mahadsan tahay jaamacadda Addis University specifically branchka Burco University waxaana ilaahay aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweyntii ballaarneed ee aadna siiseen visitka waxa nii socda senior sida uu ii sheegay aan ka maqlayay ardaydii hadlaysay inay second year-kii wadaan baan maqlay waxaan u maleynayaa ardayda kulliyadda aan wato waxaan niga fadhiyaa inaad ardayda wixii data wixii information aad ku caawisaan waxaana ay tahay oo arday mar walba ay wadaag tahay inay la dagaalanto jahliga war waligiin waxaad tihiin walaalo waxaan u mahad celinayaa ardayda jaamacadda Addis University qaybteeda Burco ku taala runtii aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen maamulka jaamacadda iyo ardayda oo noo muujiyay kalsooni iyo isku duubnaan halka uu dhinka kulliyadda informatics ka sheegay inaan safar dheer oo ku dhow 450 kilomitir soo marnay waxa sheegay inaan inaga waqtiga dheer mooyaan inaan anaga nagu ahayn inaan 2 kilomitir socdaalnay farxada iyo xiisaan u qabnay inaanu magaaladii Burco ahayd ee caasimadda gobolka Togdheer aanu soo aragno jaamacadeedii labaadna maxaan ku raadayay soo booqano ardaydeennina is dhaxgalno waxaan u mahad celinayaa ardayda sida fiican noo soo dhaweysay ee mudan qaayaha leh marka hore waxaan moodayay markay magaalada deedhiid la mooday waxaan moodayay aroos la noo galbinayba balse waxaan isri kulay time baad bixiseen waanad ku mahadsantihiin
waxaan u macelinayaa guddoomiyaha jaamacadda brofeseerka kulley waa la soo wada hadlay oo macallimiin badan iyo ardayduba way soo wada hadleen wakhtiguna uu iska kooban yahay waxaad moodaa inay dhaxana iska yar dhacayso markaan wax yar ku soo dari lahaa burco dee markii ugu horreysaan imidda maaha 2006kii baan imiday dee markaa dabaqyadan ma jirinba laakiin iminka markaan dabaqa soo fuulay magaaladii waxaan arkay badee caasimad isku soo bedelaysa hargeysa leekaanaysaba isku soo wada xoriyo jaamacadda Addis ee magaalada Burco waxay koow ka tahay jaamacadaha sida weyn uga qayb qaata horumarinta waxbarashada guud ahaanba gobolka Itoobiya iyo Soomaaliland